The insurgents continue to wait indoors to ambush the troops. siro iyo xogo qarsoodi ah oo laga helay dagaalkii ay Mareykanku ku qaadeen wadanka Ciraaq sanadkii 2003. xalqadeenan maanta arrinta ay ku saabsantaa saaxiibayaal haddii aad ka daawanaysid muuqaalkan page-kayga Facebook iyo min balaas waxaan ka codsanayaa in aad like iyo follow-ba ay saartid sidoo kale haddii aad ka daawanaysid YouTube-kayga waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto kaaga codsanayaa in aad subscribe saartid muuqaalku haddii uu ku cajabiyana aad like saarto mareegta Middle East ayaa daabacday dukumeenti aad sir u ahaa oo ay heshay xogtan aadka sirta u ahayd ayaa waxa qoray David Manning oo ahaa la taliyihii arrimaha dibadda ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair subaxnimadii 6 bishii afraad 2002 waa sanad ka hor inta uusan Mareykanku duulaanka ku qaadin Ciraaq waxa beertii madaxweyne Bush ku lahaa magaalada yar ee Crawford ee state-ka Texas ku kulmay ra'iisul wasaarihii Ingiriiska xilligaas Tony Blair iyo madaxweyne Bush ayaa u sheegay Tony Blair in uusan garanayn cidda bedeli doonta Saddam Hussein markii ay ka tuuraan talada wadanka Ciraaq haddana uusan ka lahayn ciddii bedeshay la taliyihii arrimaha dibadda Tony Blair ayaa dukumeentigan ku dhex sheegay oo yiri Bush wuxuu aaminsanaa in nidaam cilmaaniya oo qunyar socod ah ay tahay in laga dhiso wadanka Ciraaq oo ay ka taliyaan Saddam Hussein kadib nidaamkaasi wax khatar ah kuma noqonayo Sacuudiga oo ah xaliifka ugu weyn ugu muhiimsan ee gobolka uu ku leeyahay Mareykanku Bush ma uusan rabin inuu arrintaasi toos uga dhaho warbaahinta dhanka kale Bush wuxuu Turkida u balan qaaday in ujeedada duulaankan lagu qaadayo wadanka Ciraaq aysan ahayn in Ciraaq la kala furfurayo kadibna ay halkaas ka dhismayso dawlad ay leeyihiin Kurdidu taas oo si weyn ay uga soo horjeesan lahaayeen Turkidu intii aysan reer galbeedku duulaanka ku qaadin wadanka Ciraaq waxay ku eedeeyeen in ay haysato hubka wax gumaada ee nuclear-ka waxaana loo saaray guddi qaramada midoobay ka socday oo soo baara arrintaas adigu ugu dambeyn waxay sheegeen in ay haysato waan lagu marmarsiyooday wadankaasna duulaan ayuu ku qaaday Mareykanka iyo xulufadiisii ilaa Ingiriiska ilaa reer galbeedka oo dhan iyo wadamo kaleba wadankaasna waa la burburiyay laakiin mar dambe waxa la cadeeyay in aysan Ciraaq berigaas haysan hubka wax gumaada ee nuclear-ka هذا وقد شوهدت الدبابات الأمريكية صباح اليوم وهي تتقدم نحو مبنى وزارة الإعلام العراقية وسط العاصمة بغداد بعد أن شنت الطائرات الأمريكية في الساعات السابقة قصفا جويا مكثفا وعنيفا على المنطقة التي تقع فيها وزارة الإعلام العراقية laakiin arrinta yaabka iyo amakaaga iyo naxdinta iyo walwalka iyo walbahaar kale ayaa waxay tahay sanadkii 2016 ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Tony Blair ee aan soo sheegnay in uu la fadhiyay subaxii uu qaadanayay Bush go'aanka ah in Ciraaq lagu duulo Saddam Hussein wixii ka dambeynaya iyo ciddii bedelasana uusan danka lahayn ayaa wuxuu yiri waxaan aad uga xumahay oo aan cududaar ka bixinayaa in dawladda Ingiriiska ee aan berigaas ra'iisul wasaaraha ka ahaa ay qayb ka noqotay duulaankii lagu qaaday wadankaas Ciraaq waxaan helnay buu yiri oo cududaar ka dhigtay xogo sirdoon oo aad iyo aad u khaldan laakiin cududaarkiisa ma uusan dhammaystirin wuxuu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay in Saddam Hussein meesha laga saaro oo adduunyadu waxay ku wanaagsan tahay Saddam Hussein oo aan joogin yacni ninkan ra'iisul wasaaraha ka ahaa dawladda Ingiriiska Tony Blair raaligelin aad u fudud ayuu bixinayaa waxa moodaa sida qof kale dharbaaxay wadan dhan ayuu wuxuu ka ahaa qayb in uu burburiyo كلما سئلت هذا السؤال أقول إنني أعتذر عن المعلومات الخاطئة التي تلقيناها رغم أنه كان قد استخدم الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع ضد شعبه وضد الآخرين إلا أن البرنامج لم يكن موجودا بالشكل الذي كنا نظنه لذا أنا أعتذر عن ذلك wadanka Ciraaq maanta wuxuu boqol jeer ka liitaa sidii uu ahaa markii uu Saddam Hussein haystay faqriga gaajada dulmiga musuqmaasuqa shaqo la'aanta
balaayada iyo hoogga iyo halaaga reer Ciraaq ay la nool yihiin waxaa qayb weyn ku lahaa dowladihii Mareykanka iyo Ingiriisku ay hogaaminayeen ee duulaanka ku soo qaaday wadankaas ee burburiyay. runtii waa arrin argagax iyo yaab leh in laba hogaamiye oo hogaaminayay laba wadan oo aad u waaweyn in markii ay ku duulayeen wadan mid uu yiraahdo hebel markii aan meesha ka saarno waa Saddam Hussein wax haddana kama lihi cidda bedelasa iyo Ciraaq sida ay u ekaan doonto kan kalena oo si caadi ah iskaga yiraahdo waa raali gelinayaa waana ka xumaa yacni wuxuu ka soo qaaday sida laba qof dharbaaxa isku dhufatay kama uusan soo qaadin in wadan dhan dowladii ay ka burburiyeen ee ummad dhan uu hoog iyo halaag lugaha u geliyay. xalqadina kooban saaxiib yaal intaas ku eg tahay waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto mar labaad iyo mar saddexaad in ka codsanayaa in haddii muuqaalkaygan aad ka daawanaysaan page-kayga Facebook Yamian Plus aad follow iyo like bay saartaan haddii aad YouTube-kayga ka daawanaysaanna waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan waa mahadsantihiin guuleysta nooli kulante.